لا أحب أكتب، لا أحب أكتب. النوع مكتوب على الكتاب.
gaarin. يا حد التوبة لا يا حد التوبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا aan ku boona hawada sare saaxiibayaal magaalada Kismaayo ayaa hadda waxaa ka socda dab weyn oo aad iyo aad u baaxad weyn oo sida u jeedaan suuq weyne ee Pretoria ee shidaalka lagu gadi jiray ayaa hadda waxaa goor haddadan ayna la hadlayo ay saacadu tahay 5 saac iyo bar habeenimo ayaa waxaa ka qarxay foostooyin shidaal ah oo shidaal ka buuxay ayaa hal mar ah dab wada qabsaday marka waa musiibo u soo hoyatay dadka reer Kismaayo oo caawa aad bari laga yaabo Ilaahay hadduu dabka qaboojiyo waa gaar laakiin magaaladu dabdamis yaala ma jiro laakiin shidaalkii hadda ayaa u holcayaa sidaad u jeedaan ilaa haddana wax dabaysa ma jiro oo inkastoo hadday xilli habeen ay tahay musiibo weyn ayaa halkan ka dhacday dabka ayaa weli socda oo loo caalayahay marka ka dambeysa foostooyinka ayaa cirka isku shareer qarax weyn ayay muujinayaan ama sameynayaan marka dadkii marka qaab loo damiyo waa la garanayahay musiibada Soomaalida u soo hoyatay ganacsigooda markasta caqabad ku ah ayaa jirta Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu musiibooyinkaas naga badbaadiyo qaraxa waa kan waa socdaa foostooyinka cirka ayay isku shareerayaan marmarka si dambeyso wuu sii laba qarxayaa ilaa haddana waa loo caalayahay oo hadda waxaa laga daadguraynayaa meelaha ku ag dhowaa dabku uu saameyn lahaa ayaa waxaa laga daabulayaa inkastoo ay tahay xilli habeen oo la kala seexday mararka qaarkoodna laga yaabo inay maaragtay mashaakil iska dhici karto ayay suuragal tahay xilli kasta iyo goor kastaba marka insha allahu tacaala waa kan waxaan rajeynayaa inaan warku xiga insha allahu tacaala aan horey usii wada doono barnaamijkan Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu musiibadan qaraxan ama shidaalkan gubanaya inuu Ilaahay naga badbaadiyo dabkan